الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سقالية تبناد هي كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله وقيبتي شيخ سو أروريي أو فوائدي أو سو قريويان طيب وحاكمذا وحاليري إذا استكمل العبد حقيقة اليقين haddii addoonku uu dhammaystirto xaqiiqada yaqiinta hadduu gaadho alyaqiin haddii uu gaadho wuxuu noqonayaa saara albalaagu cindahu nicma waalmixnatu minxa yacni belada iyo dhibaatooyinka kugu dhacaya baabaad u arkaysaaba nicmo u arkaysaa kuma dhibayaan nicmaad u arkaysaa ilaahi subxaanahu watacaala mixnadu waa dhibka kugu dhacayana minxa siisma ilaahay ku siiyey ayuu qofku u arkayaa waa markii insaanku uu yaqiin uu gaadho weyaan maxaa jira waxaad dareemaysaa wax walba oo kugu dhacay ilaahay subxaana watacaala xikmadiisa ayay ku socdaan waana ikhtiyaar iyo wax ilaahay subxaana watacaala uu kuu gartay oo kuu dooray weye walacalla in ilaahay rabo inuu dembigaaga adoo adduunka joogaba ku dhammeeyo aakharana aad tagta adigoo suusuubi oon wax dembi aba lahaynba الحسن كان الحسن حسن طبعا هذه هو حسن البصري رحمه الله تابعي وحول إذا رأى الصحابة حسن هدو أركو ضرورها مركو أركو إنها ضرورة مركو قرأت في ضرورة إن إيش كلفته يا وحول جري في هذا والله رزقكم ها إله بان كل أرتي رزقيني وفي السماء رزقكم هل كاسو كدليشان يا رزقيني هل كاسو جرى محاجر ضرورته روب كينيسا روب كاسنا beerihuu buu bixinayaayo daaq buu soo saarayaayo xoolihiibaa cunayo halkaasaa faa'iida ka walaakinakum idinka ayaa wuxuu yihi tuxarimuunahu bikhataayakum wadunuubikum yacni dembigiina ayaad ku xarimaysaan dunuubtiina aad gelaysaan ayaa roobkaas loo ceshadaa maxaa jira waa inagii xitaa soo maraynay xitaa albahaa-im ayaa waxay leeyihiin waxaana looga manciyey matarkii bidunuubi bani aadamka dembigooda ayaa roobkiina looga celiyey marka wuxuu oran jiray wallaahi baan ku dhaartay risqigiina halkaasuu jiraa laakiin ma imaanayo macnaa roobku iman maayo idinka dembigiina dartay azhadu nnaasi fi lcaalami ahluhu wa jiiraanuh waargabuhum fiihi albucadaa canhu yacni masale iyadana waxa weeye dadka caalimka sheekha waxa dadka ka fog waxaa la inta badan aan waxba ka faa'iidaysanin waa reerkiisa iyo dariskiisa dadka ugu jecel inay wax ka qaataanna waa dadka ka fog oo maaragtay aanba gaari karin dadkaasaa ku fikiray waxaan filay inaan ka hadlayeyna maalin dhoweyd aan ka hadlayay dadka markay xitaa kuu arkaan meel walba markaan adduunka aan marayno ay meel kugu arkaan ruuxu wuxuu isku dayay ilaahu muu meel un kugu arko hadduu ku garto inuu si degdega su-aal ku weydiiyo sheekhow waan ku raadinayay sheekhow nasiib baan u yeeshay inaan ku arkay hal su-aal baan rabaa inuu yani qofka waxbaa ku taagan wuxuu rabaa inuu kaa faa'iidaysto uu durba ku weydiiyo laakiin waxaa laga yaabaa reerkaaga iyo dariskaaga iyo dadka aada la joogto inaadan maaragtay iyagu aynan faa'iido badan markaa ku qabin ama aynan ba u arkin inay kaa faa'iidaystaan waxyaabaha jira ayaa ka mid ah rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu xarimay kula dii naabin min asibaaci wa mikhlabin min adayr lidararihi wa cudwaanihi wa sharih wax kasta oo waxyaabaha micida leh oo waraabaha ah iyo waxyaabaha mikhlabku waxaa weeyaan cidiyahooda wax ku dila dayrka waxaa weye shimbiraha cidiyaha wax ku dila babowga baalkii la odhan jiray iyo waraabaha midkan micida leh iyo waxaas waxaa loo xarimay oo hilibkoodii xitaa loo xarimay lidararihi wa cudwaanihi wa sharih shartooda iyo dhibaatadoodii ayaa loo diiday iyo suntooda iyo dhibaatada ay qabaan ayaa loo diiday fa xurima cala alummati akluha ummadiina waa laga xarimay cunitaankeeda haddii addoonku uu arki lahaa baa la yidhi ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله هدي بن آدم كأدونك أركي لها وحبدا كجرة وحيوانات كتيرا بدن جواهرتي جوهركي وحيابها وناكسن وحيابها إلهي أغيهي عدك لأنقرين وبدا كل جرة oo aynan inagu wax yar un ka garanayno in badanna aynaan ba garanaynin
لرأى العجب وحو أركلا وحو لياب ولا علم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو وحون أغان لها قفكاسي ربي أوديس وينن كذا تصرف كيس يمامل كيس وينن كذا junuudiisa iyo ilaahay makhluuqaadka u abuuray tiradooda oo isaga moogiya cid kale aan garanayn. intan yaree beriga iyo dhulka joogta waxaa ka badan boqolaal jeer makhluuqaadka ilaahay abuuray ee badaha ku jira ayaa ka badan oyna inagu garanayn. marka taasina waa awoodda rabbi ayay tusinaysaa. ilaahay subxaanahu watacaala inaga yeela kuwa garta rabbi iyo qadarkiisa iyo awooddiisaba garta allah inaga yeelo. addoonnimadeenna iyo miskiinnimadeenna